muuqaalkan daqiiqadaha yar ka kooban waxaan kugu sheegayaa magacyada lacagaha dul saaran iyo dambiyada ay galeen dadkii loogu doonista badnaa dunida taariikhda oo dhan muddo fogna la raadinayay balse qaar ka mid a dadkan waa la helay halka kuwa kalena la dilay madaxoodana waxaa la duldhigay balaayiin iyo malaayiin dollar si loo helo dadkan aan kuu sheegi doono waxaa ku jira kuwa aad taqaanid balse dambiyada ay galeen halis yihiin waana kuwan xogtooda iyo dambiyada lagu soo oogay Nazira Marcia Cross waa haweeney waxaana madaxeeda la duldhigay 1 milyan oo dollar waxaana loo haystay dambi ah inay dishay seegeeda waxayna ku dishay gudaha dalka Peru sun ayayna siisay kadibna meel cidna aysan joogin ayay ku aastay John Wilkes-Booth wuxuu ahaa actor American ah waxaa madaxiisa la duldhigay 1 milyan iyo 700 oo dollar waxaana loo haystay dambi ah inuu shirqoolay madaxweyne hore ee Mareykan ah laguna magacaabi jiray Abraham Lincoln oo la toogtay isagoo masrax ka khudbeynaya laakiin markii dambe waa uu geeriyooday John Felician Kabuga isna wuxuu ahaa ganacsade Rwanda u dhashay waxaana madaxiisa la duldhigay 4 milyan oo dollar wax ka badan waxaana loo haystay inuu door muhiim ah ka qaatay xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda ee qoomiyadaha Hutsi iyo Tutsi u dhaxeeyay doorkiisa ayaana ahaa mid weyn Joaquin Eljabo Guzman waxa uu dhashay dalka Mexico madaxiisa waxaa kor saarnaa 5 milyan oo dollar wuxuuna maamuli jiray koox ka ganacsata daroogada oo saldhigoodu yahay dalka Mexico ninkan markii la xiray marar fara badan ayuu ka baxsaday xabsigii lagu xiray balse markii dambe xabsi daayin ayaa lagu xukumay Adolf Hitler waa la wada garanayaa ninkan in badan Jarmalka ayuu dhashay wuxuuna ahaa kaligistalis mayal adag madaxiisana waxaa la duldhigay 15 milyan oo dollar dambiyo waaweyn iyo xadgudubyo oo geystay ayaana loo haystay Sheekh Daawud Xasan isna wuxuu ka mid ahaa dadkii loogu doonista badnaa dunida inkastoo xogtiisa jagada uu hayay iyo dambiga uu galay bala soo bandhigin qofka ugu dambeeya ee aan rabo inaan kuu sheego waa taqaanaa marar fara badan ayaadna maqashay magaciisa waana qofkii ugu doonista badnaa bariga dhexe oo dhan magaciisuna waa Osama bin Mohammed bin Awad bin Laden laakiin loo garan ogaa magaca iska gaaban Osama bin Laden wuxuu ahaa aas-aasaha ururka Al-Qaacida ee dunida ka dagaalanta wuxuu ahaa muwaadin u dhashay dalka Sacuudiga madaxiisana waxaa saarnaa 25 milyan oo dollar ciddii soo sheegtay in la siiyo waxaana lagu eedeeyay dilka dad badan oo Mareykan u dhashay iyo kuwa kale oo u dhashay wadamada Carabta markii dambese xogtiisa ayaa la helay ugu dambeynna waa la dilay balaag saar muuqaalka kadibna qaybta hoose ku sheeg qofkii ugu horeeyay aad maqasho magaciisa looguna doonista badnaa caalamka oo idil aniga qofkii ugu horeeyay ee aan maqlay waxaan ku sheegayaa qaybta hoose ee commentiga idinkuna halkaas idinku arko waad mahadsan tahay muuqaalkan marka hore like saar share dheh siina gaarsii asxaab fara badan